Ma jiraan waddooyin iga caawinaya inaan guulaysto? Jawaabta oo koobani waa haa. Halkan waxaan kaaga soo gudbin doonaa ilaa iyo 4 waddo oo haddii aad qaado kaa dhigaya inaad noqoto qof guulaysta, inaad noqoto qof rajadiisa, hamigiisa iyo riyadiisaba ka dhabeeya. Kow waa carbinta nafta. Haddii aad awoodid in aad naftaada xakamisid, awoodid naftaada inaad xukuntid, awoodid naftaada inay samayso waxaad adiga doonayso, maaha inaad u aabayso naftaada waxa aysan doonayn. Isku day inaad samaysid waxa aysan naftaadu marnaba raali ka ahayn. Haddii naftaadu aysan ogoleen inaad subaxii soo kacdo ama habeenkii waqti hore soo kacdo, wax aqrido, wax qorto, ku adkay naftaada oo carabi naftaada. Lambarka 2 is-aaminida nafta. Inaad aaminta nafsadaada, dhegaysata hadallada qalbigaaga, aadan marna u aabayeelin hadallada dadka kale. Sababtoo ah haddaadan is-aaminin cid ku aaminaysa ma jirto. Haddii aad is-aaminto dadka kale oo idil waxay ku qasban yihiin inay ku aaminaan. Qodobka 3 kalsoonida nafta. Haddii aad tahay mid ku kalsoon naftiisa, haddii aad tahay mid awooda inuu sameeyo wax waliba, ku kalsoon naftiisa, isticmaala hadallada dhiirigelinta, kana fogaada hadallada nusqaanta, waa xaqiiq inaad guulaysanaysid. Lambarka 4 inaad samaysid isbeddel. Sababtoo ah calaamadaha dadka guulaysta waa dad sameeya isbeddel markii ay u socon weydo waddo. Waa dadka keena xal markii aysan shay waxaa lahayn. Fadlan muuqaalka haddaa ka hesha like saar, sidoo kale subscribe saar channelka, sidoo kale gambeelka riix si notificationka uu kugu soo dhaco. Asxaabtada inaad u sii share gareyso ha ka ilaawin. Waad mahadsantahay meel walbaad